بسم الله الرحمن الرحيم kulanti wacan wanaagsan daawadayaal dhegeystayaal meelabaad joogtaan iyo si walba oo tabinteenu idiin soo gaarayso halkan waa Beledweyne City waxaadna dhageysanaysaan isha wararka ee Beledweyne City qodobada aan kusoo qaadan doono waxay inta badan u badnaan doonaan khasaarihii ka dhashay weeraradii shalay magaalada Muqdisho oo mataanaha ahaa ee loogu geystay dad shacab ah magaalada Muqdisho ayaa waxaa maalinimadii shalay ahayd ay ku dhacay qaraxyo runtii aad looga naxo waxyaabaha ka imaanaya muuqaalada laga soo tabinayo iyadoo ay jiraan dad shacab ah masaakiin waxba galabsan kooxda nafla caariga ay khawaarijta al-shabaab oo alaaba lagu yaqiinay inay bartilmaameedsadaan dadka shacabka ayaa waxa ay maalinimadii shalay ahayd ku beegsadeen dad shacab waxba galabsanin qaraxyo mataana ah oo ka dhacay isgoyska Sobe iyadoo bartilmaameedkooda sida wararku ay sheegayaan wasaaradda waxbarashada ee dalka kooxda al-shabaab ayaa waxa ay baabuur ka soo buuxiyeen walxaha qarxa oo ay ku dhibaateeyeen dad shacab ah waxba galabsanin iyadoo oo dadka ee meeshaas ku dhintay tiradooda kor u dhaafayso sida hadda laamaha caafimaadka ay sheegayaan boqolaal qofood ama boqol qofood in ka badan halka dhaawaca lasoo sheegayo in tiro intaa ka badan oo 350 qofood ah lasoo sheegayo dadka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho ku dhaqan ayaa waxa ay ku xukuman yihiin dil iyo qaraxyo iyadoo aysan jirin mas'uuliyad rasmi ah oo dowladda federaalka Soomaaliya arrinkaas ay ka qaadanayso runtii waxyaabaha ka dhacaya magaalada Muqdisho ama markaad fiiriso warbaahinta caalamka iyo kuwa gudaha ayaa waxaa laga soo tabinayaa muuqaalo argagax waxyaabaha ugu daran ee dadka aad u hadalhayaan waxaa kamid ah in hooyo Soomaaliyeed oo dhimatay laga soo hoos qaaday cunug ay dhashay oo runtii askari Soomaaliyeed uu soo badbaadiyay hooyada Soomaaliyeed iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ee meeshaasi lagu laayay ma garanayaan sababta loo dilay iyo cidda dishay sidoo kalena cidda dishay ma garanayso sababta ay dadkaasi masaakiinta ah waxba galabsanin ay u laysay qaraxan ayaa waxa ama qaraxyadan ayaa waxa ay kusoo beegmayaan xilli dadkaas Muqdisho oo shaqooyinkooda ay ka soo warxeen iyadoo ay ahayd maalinimo Sabti ah oo waliba xilli dadka ay sida la sheegayo ee saxmadda wadooyinkaasi ay aad u badnaayeen alaba dhaqanka noocan ayaa waxa looga bartay kooxda khawaarijta al-shabaab inay ku dhibaateeyaan dadka masaakiinta ah waxba galabsanin ayadana waxaa lasoo sheegayaa in khasaaraha amaba dhibaatada meeshaasi ka dhacday ay aad u sii badanayso mar ka dambeysa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo habeennimadii xalay ahaa soo booqday goobtaasi ayaa waxa uu ka codsaday beesha caalamka iyo guud ahaan wadamada saaxiibada la ah Soomaaliya inay la soo gaaraan dhaqaatiir badbaadisa ama caawisa dadkan bukaanada ah oo isbitaalada jiifa isbitaalada qaar ayaa waxaa laga soo tabinayaa subaxnimada saakay ah falal runtii aad looga argagaxo oo dadka Soomaaliyeed inta badan ay aad uga caroodeen iyada oo dadka ay ku xukumayaan amaba ay ku amrayaan isbitaalada Muqdisho weeye in ay bixiyaan $29 hadii uu dhiig loo shubayo runtii dadka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho gaar ahaan dadka ku dhaqan Muqdisho ayaa waxa ay u muuqdaan kuwo aan dan iyo xaajo toona laga lahayn iyada oo sidoo kale la soo sheegayo shirkadda korontada ee Beko ee magaalada Muqdisho ka howlgasha in maalinimada Berita oo ku beegan 31 Oktoobar ay hawada ka saari doonto adeega korontada ee magaalada Muqdisho iyadoo ay dadka Muqdisho dhibaatada ka soo gaartay qaraxyadii shalay ay saalooyin ka saaran yihiin mid kamid ah saxaafadda la hadlay mid kamid ah dadka Muqdisho saxaafadda la hadlay ayaa waxa uu yiri dadkii ay wada dhinteen aniga dad ehelkayga saaxiibadayga ku dhaawacmay laakiin aniga waxa iga muruga leh marka isbitaaladii booqday aan tagay waxaan arkayaa hooyo umula waxaan arkayaa ilmo saqiira oo dhiig u baahan waxa lagu xujeenayaa lacagtii dhiigga ugu shubi lahaa waxa lagu xujeenayaa qofkii ku shubi lahaa ma haysataa dhiigga qofku shubi ma haysataa la leeyahay marka maxaa wadnaa runtii arrimahani ayaa waxay yihiin kuwa runtii laga argagaxo oo dadka masaakiinta ayaa la soo warinayaa in isbitaalada banaankooda ay maanta yaalaan iyadoo aysan jirin gurmad rasmi ah oo ay ka qayb qaadanayaan isbitaalada magaalada Muqdisho isbitaalada ayaa la soo sheegayaa in ay dadka weydiinayaan $29 inay bixiyaan hadii dhiig loo shubayo arrintan ayaa waxa ay ka hor imaanaysaa guud ahaan insaannimada iyo bini'aadanimada iyadoo oo la doonayo in dadka masaakiinta shalay lagu gumaaday Sobe la doonayo in lagu badbaadiyo dhiig loo shubo al-shabaab ayaa waxa markan moodaa in ay sii dabar go'ayaan oo ay kasoo kaliya ay hadda doonayaan inay baabi'iyaan ama xasuuqaan inta yar ee ka hartay dadka Muqdisho ku dhaqan dadka Muqdisho ayaase waxaad moodaa inay ka gaabiyeen la dagaalanka kooxdan oo
oo dhanka gobolada dhexe ee Soomaaliya dadkii ku noolaa ama dadka shacabka ah ee gobolada Galgaduud iyo Hiiraan ay iska caabinayaan kooxdan. Dadka Muqdisho ayaa waxaa lagu dhaliilaa in aysan qayb ka noqonin inay iska caabiyaan kooxdan oo aysan laamaha amniga la shaqeeyaan, ayadoo laamaha amniga ku dhowda lagu dhaliilayo in aysan xil iska saarin mas'uuliyadda inay badbaadiyaan dadka shacabka ee Muqdisho. Magaalada Muqdisho waxaa laga soo warinayaa xaalado murugo oo bini'aadanimo ah, waxaana bulshadu ay markani ay wajahaysaa caqabado xagga amniga ah. qodobkaasi ayaan bal maanta ku eegi doonaa isha wararka ee Beledweyne City. Wixii kusoo kordhaa qodobkan iyo guud ahaan xaaladaha dadka isbitaalada jiifa waxaan idin kula daawagi doonaa qodobada kale ee barnaamijyada isha wararka oo Beledweyne City aan idin kugu soo gudbin doono.